بسم الله الرحمن الرحيم waxaan isku dayaa inaan waqtigeyga ka faa'iideysto maadaama laba topic oo ah labada cudur ee ugu muhiimsan ee ilmaha ku dhaca aan rabo inaan daboolo mid waxa waaye waa club feet ama sida medicalka loo dhaho congenital talus aqueous virus inta badan waxyaalaha ugu badan ee Soomaalida inta badan aan ka faa'iideyno in aan saxno as orthopaedic doctors ka waxa waaye waxna waa wax qalliin ah waxna waa wax qalliin la'aan lagu daaweeyo waxaan isku dayayaa inaan cover gareeyo asun sida ugu dhaqsaha badan labada topic inaan within 10 minutes ku cover gareeyo laakiin isku daya inaad luqadeeda fahantaan slide-kana aadan concentration badan sameyn waxaan ognahay club feet waa waxyaalaha ugu badan ee ilmuhu inta badan ku dhashaan waxaan ognahay in ilmo badan markay lugooda qalloocsamaan oo da'dooda inta badan ay gaadho 10 ama 20 years la dhaho ilmahan maxaa lagu sameyn karaa inagoo haysana xilli ilmuhu ay lugahooda qalloocooda la toosin karo waxa adduunka hore ka jiri jirtay in ilmaha lagu toosiyo qalliin laakiin waqtiga kadib waxaa la helay in bilaa qalliin ilmaha lugahooda la toosin karo waa maxay marka toosinta waxyaalaha aan ku leeyahay qalliin la'aan micnaheedu waxa weeye waxaa jirta technique ama qaab farsamaysan oo ninka dhakhtarka uu doonayo in uu ku sameeyo club feet-ka correction-ka iyadoo soo isticmaalaya jeesto loo micneeyay ama loo sameynayo waqti cayiman isbuuc walba maalin isbuuca ku xigtana maalin mid walbana waxaa lagu toosiyaa sida abnormality-ga ama sida lugtu qallooca u bilaabato waxaa halkan ka arki doontaan waxyaalo tiro badan oo ah inta badan topic-ga marka aan dhameeyo club feet waxaad awoodaa in aad samayn kartid fahmi kartid waa maxay club feet that's why aan u iri micnaha club feet maanta ayaan cover garanaynaa waxaan ognahay ilmuhu markay dhashaan day 1 ama maalinta ugu horeysa waxaa noo habboon in ilmahaasi loo geeyo dhakhtarka dumarka oo ah obs dhakhtarka gayniga dan dhakhtarka guud ee cudurrada ciyaalka iyo dhakhtarka orthopaedic iyo dhakhaatiir kale orthopaedic waa one of the most important thing ee ilmuhu markay dhashaan loo geeyo as screening marka deformity maaha kaliya club feet waxaa jira dhowr deformity laakiin waxaan aniga hadda aan daboolayaa waa club feet lugaha qalloocan ee ilmaha waxaa jirta dad caan ah oo club feet-ka qabay oo lagu toosiyay qalliin la'aan oo maanta caan ah waxaa ka mid ah sida ciyaartooyga u ciyaari jiray kooxda Liverpool oo la dhihi jiray Gerrard haddaad historygiisa fiiristaan wuxuu qabay cudurka loo club feet lugihiisu way qalloocsanaan maanta waa ninka ciyaartooy ugu fiican marka haddii la toosin karo waay qof ilmo yar oo Somali ku dhashay ilmihiisu isagoo lugahoodu qalloocan yihiin ay ku weynaan karaan arrintaas waxaan ballan qaadaynaa as orthopaedic dhakhaatiirta in ilmo dambe lugahooda aysan qallooc ku weynaan doonin laguna toosin karo club feet insha Allah waxaan kaloo rabnaa inaan ogaano club feet-ka toosinta waxaan dhakhaatiirta lafaha mar kale aan ka codsanayaa in ilmaha loogu toosiyo lacag la'aan oo aan wax lacaga aan lagu jaajgarin insha Allah waxaan kaloo aan rabaa in halkan ka sheego adduunka haddii uu diiday ilmo qalloocan inuu ku dhex jiro waay innaga Soomaali ahaan ilmo qalloocan yihiin ugu dhex jiri karaa taas waxaan idhi no waxaan rabaa oo kale halkan inaan ka faa'iideysto Mogadishu iyo gobolladaba waxaa ka buuxa dad danyar dadka danyarta ee lugooda qalloocan yihiin waxaan isku dayaynaa inaan meeshooda ugu tagno oo lugooda u toosino lacag la'aan laakiin waqtigooda inaan helaan anigoo ka faa'iideysanaya time-kan jirin ma doonayo presentation sidii arday la idin sharaxayo laakiin waxaan rabaa inaan af Soomaali ugu sheego club feet-ka sida loo toosiyo maamadu markay cunuga dhasho maalinta ugu horeysa maalinta ku xigta cunuga markay u keento dhakhtarka lafaha habka loo toosiyay waxa weeye assessment-ta jirta luguhu markay qalloocan yihiin waxaa jira liba aad u qalloocan oo la dhaho physiological club feet mid waxaa jira really club feet ah oo u baahan in la toosiyo toosintaasi waxaa ugu muhiimsan hooyada in la fahansiiyo aabaha muhiim ah hooyada fahansan maxaa yeelay hooyadu ilmuhu maalin walba waxay kugu keenaysaa guriga markii cunuga jeestada laga soo furana gurigeeda waxay ku soo sameynaysaa physiotherapy kadib waxaa la fahansiinayaa cunuga lugtiisa in la toosinayo macallimada ugu koow ama dhakhtarka koowaad waa hooyada waxaan kaloo rabaa inaan ka faa'iideysto habka jeestada loo sameeyo waa technique waxaa jira score la dhaho Birani score ninkii soo saaray wax la yiraahdo Bonseti oo ahaa technique ugu fiican ee club feet lagu toosiyo
wuxuu ahaa nin European aakhirkii wuxuu ku dhamaystay nin Mareykan ah xaruntiisa wuxuu ku bilaabay Miami oo ah waddanka Mareykanka wuxuu keenay in testada lagu toosin karo lugo qalloocan qalin la'aan waxaan kaloo rabaa inaan halkan ka faa'iideysto club feet-ka inta badan waxyaalaha ugu badan what are the type of club feet inta badan halkan sharaxaad badan kama rabo inaan ka badiyo laakiin dhakhtarka lafaha garan kara nooca club feet-ka uu yahay waxaan u kala qaybinay idiopathic and etiology qayb aan la aqoon iyo qayb acquired secondary to CNS disease spinal bifida dad badan waxaa jira neerfaha ka jiran oo lugahooda neerfaha saameynaya inta badan waxyaalaha ugu badan ee ultrasound-ka haddana aan ku fiirin waxaa ka mid ah in raajo la isticmaalo ilmaha screen lagu sameeyo DDH uu leeyahay spinal bifida oo la xiriira club feet marka cunugu lugihiisa hadday qalloocan yihiin yaan loo malayn lugaha qalloocan keliya inay ku eegyihiin screening kale jira oo ah another congenital deformity oo ah dhibaato kale cunug ku dhashay ilmahan lugihiisa qalloocan haddaa arki kartaan laba nooc baa jirta what is the etiology Somali wax badan baad ka saameyn doontaa etiology waxaan soo qornay boqolkiiba kunkii live birth waxaa ka arkaysaa hal cunug oo lugihiisa qalloocan yahay laakiin Soomaaliya waxaa laga yaabaa kunkiiba laba qof inuu yahay intaan aragnay kuma waqti kuma luminayo etiology laakiin waxaan doonayaa what is the etiology haddaba waa maxay waxa sababi kara in cudurkan club feet ama lugaha qallooca inay yimaadaan waxaan idhi polygenic multifactorial iyo another factors laakiin waxaan doonayaa in aan halkan ka sheego club feet-ka inta badan uu soo laabtaa muxuu ku soo laabtaa laba arrimood buu ku soo laabtaa horta marka ugu horeysa in maamada la fahansiiyo xilliga markii jeestada laga furo subixii ay ku keenayso in ay physiotherapy ku samayso jeestada kaliya ma aha mid lagu saxo waxaa kaloo jirta wax la yiraahdo bracing oo kaba lagu xiro kabaha kaliya xataa kuma eka intaadan kabaha aadin waxaa jirta sardin yiriisa oo la sameeyo la dhahaa tintin intaba bukaanka in lagu saxo way habboon tahay maadaama waqtigu yar yahay topic labaad oo vertical talus uu jiro waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto laba arrimood oo ah ilmuhu ayagoon la qalin maadaama la sixi karo intee baa lagu sixi karaa jawaabtu waxa weeye ilaa 6 isbuuc ilaa 20 isbuuc buu lugaha ilmaha lugtooda ku sixi karaan waxaan kaloo rabaa inaan ku gabagabeeyo maadaama waqtigu u dhamaaday congenitally club feet-ku laba shay buu ku gabagaboodaa maadaama uu soo laabanayo waa yar yahay soo laabashadiisa laakiin waxaan uga faa'iideysanaynaa si uu soo laaban inay isticmaasho Bernie score oo ah score-ka lagu saxo technique bone city oo loo sameeyo iyo cunuga maamada oo mar walba loo sheego habka noocay tahay maadaama topic uu dheer yahay waqtigu uu yar yahay laakiin tan aan ku soo gabagabeynayaa club feet maadaama topic kale aan ka gaari karin inta qaybood ee aan ku saxno club feet waa maxay waa C cavus A adduction V varus E equinus waa afartan nooc ee lugta loo saxo afartan mid walba waxay leedahay waqti la saxo intaba lama sixi karo cavus haddii la dhaho lugta qalloocan suulka laga bilaabaa suulka marka laga bilaabo kadib lugta meesha qalloocan tahay maalinba kis baa la saxaa ilaa aad gaaraysid goolkii ugu dambeeyay waxa ugu dambeeya waa midka ugu dambeeya la E equinus waa lugta markay faraha lugta hoos ay taabanayso kaasina waxaa lagu saxaa inta badan markii seeda gadaal la saro kadibna jeesto lagu xiro 2 week marka waxaan ku soo gabagabeynayaa oo waqtiga dhamaaday laadigiis in club feet uu yahay waxa ugu fudud ee la sixi karo runtii waana topic dheer oo lagu akhrin karo hal saac laakiin 10 daqiiqo ayaan ku soo gabagabeynayaa insha Allah. Assalaamu calaykum.